kulankan ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silan iyo kula yeeshay xafiiskiisa safiirka xogeenka wadanka Ingiriiska u fadhiya caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa Master Chris Allen oo muddo saacada qaatay ayaa ujeedada ugu weyneed waxay ahayd sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo Britain gaar ahaan sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha iyo guud ahaan arrimaha horumarinta ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo markii shirkaasi dhamaaday la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dawladda Britain ay tahay saaxiibada ugu waaweyn ee Soomaaliland ay leedahay arrintan oo muujinaysa xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Britain iyo Soomaaliland cooperation kale dhinaca nabadgelyada leh xagga dhaqaalaha iyo guud ahaan dhinaca xagga horumarka Britain waa dalka ugu badan ee mucaawano siiya Soomaaliland waxaan la leenahay dawlad ahaan iyo shacab ahaanba xiriir soo jireen ah oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi si isku dheelitiran ay labada dal u shaqeeyaan maantana booqashadiisa halkan dalka ku yimid oo madaxweynaha la kulmay waxay la xiriidhaa si kobcinta iyo xiriirka labada dal Britain waa saaxiibada ugu dhow ee dalka Soomaaliland dibadda ku leeyahay wadamada reer galbeedka waxaanu rajaynaynaa xiriirkaas inuu sii kordho wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka tilmaamaya inuu xumaaday xiriirkii u dhaxeeyay wadamada Soomaaliland iyo Ingiriiska waxa bariyaan soo baxay murano iyo hadallo aan xaqiiq ahayn oo sheegaya sidii wax xiriirka Soomaaliland iyo Ingiriiska uu imika sidii hore ka khafiifsan yahay arrintaasi waa arrin aan jirin waa arrin ka fog xaqiiqda sidaan sheegay Britain waa dalka ugu badan ee mucaawano siiya waa dalka ugu badan ee xagga amniga iyo nabadgelyada kala shaqeeya Soomaaliland imikana waxay nagala shaqeynayaan dhinacyo cusub oo xagga dhaqaalaha iyo horumarka uu badan yahay safiirka xogeenka wadanka Ingiriiska ee fadhigiisu ee caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa oo isaguna ka hadlay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silan ay u cadeeyeen inuu sii soconayo xiriirka saaxiibtinimo ee taariikhiga ee u dhaxeeyay boqortooyada Ingiriiska iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Ingiriiskuna ay dareysan tahay inuu yahay mid aan la yareysan karin kaasoo ay ku jiraan buuri arrimaha ay hormoodka ka yihiin sidii loo horumar lahaa adeegyada bulshada We reaffirmed the United Kingdom's commitment to its strong and historic friendship and relationship with Somaliland. The strength Master Chris Allen waxa uu iftiimiyay in madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Silan ay ka wada hadleen oo kale arrimaha maalgashiga iyo ganacsiga ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Ingiriiska iyo sidii loo sii horumarin lahaa Master Chris waxa uu sheegay inay sameyn doonaan barnaamij lagu maalgelinayo hay'adaha ganacsiga ee Soomaaliland kaasoo la raacayo qorshaha horumarinta ee ay dejisay Soomaaliland kulankaasi ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka xogeenka wadanka Ingiriiska u fadhiya wadanka Itoobiya ayaa waxa ku weelinayay wasiirada wasaaradda ganacsiga qorsheynta iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha kulanka ballaaran ay wada qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silan iyo safiirka xogeenka wadanka Ingiriiska u fadhiya caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa ayaa ka mid noqonaya kulamada joogta ee lagu sii xoojinayo xiriirka ballaaran ee walaaltinimo u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo Ingiriiska Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa